برصاب كبرصاب لين كواحد من الجوجا سودان كيبود سلاطين تقول كودي سرل سودان سليمان وهكذا اللغة دعائي نورا باقنا نور دريد دوينها وحنساك ديارنا هؤلاء ديوان قلت قولها أولا يسلل وواحد كبلا بين نمط مجال بورم معناه هؤلاء نظني واحد كشغالي عن ضمان قول كودي يسلل لكن واحد كبلا وني مجال بورم سودان جوجا نهلك وحلا تجي دونا بكي وهي لا تجي دونا سيد عمل تجي دونا وحلا تجي دونا ضمان دقوي كخلاء أيوسي بهذا قولنا يتولوي كولا تجي دونا معناها مدة عاصمة ما كبر ونبور ما دام يتهمش وجود بريش كبدل له مهمة قواتنا سينا إن عاصمة ديوي waxaan furnay markaas 20 tiim ee lagu tala galay gobolka waxaan wada keenay saaka magaalada Boorama waxaan dhignay goobo ay tahay waliba inay iclaamiyaan mas'uuliyiinta gobolka iyo degmadu dadweynaha ku wargeliyaan goobaha ay ka socoto diiwaangelinta waxaa la sameyn doonaa diyaara gawaari makarafoon leh oo bulshada u sheega goobaha diiwaangelinta ka socoto ayaa la diyaarinayaa hawlwadeennadii waan diyaarinay askartii waan diyaarinay xuqaashii waan diyaarinay goobihii diiwaangelintaan diyaarinay khadkii internetka iyo facility oo dhan waan wada habaynay marka dadweynaha degan magaalada Boorama waxaan ugu baaqaynaa inay chance ka fariistaan isna diiwaangeliyaan diiwaangelinta waxa ka dhalanaya waa family sheetkiisa oo barsaab ku sheegay buuggii qoyska ee uu ka maartay diiwaangashanaa xubnaha qoyskaasi ka koobay waxaynu ku ogaanaynaa baabulasha register macnaha waxaan ku ogaanaynaa tirada baaxadda dadweynaha si loogu beys gareeyo ama sal looga dhigo looga duulo mashaariicda horumarineed haddii iskuul meel laga dhisayo dadweynaha degan iyo dadka waxbarashada gaaray ee tarbiyada sheegaysa haddii xarun caafimaad meel laga dhisayo dadweynaha degan xarunta caafimaad bakina u baahan yihiin meel sports u baahan yihiin ma dhakhtar u baahan yihiin ma referral center u baahan yihiin waxa sheegaya markaa baabulasha register laga duulaya markaa muhiimad weyn oo xagga development-ga ama horumarka uu leeyahay waxa kale uu leeyahay xagga security-ga amniga qofka muwaadinka iyo qofka aan muwaadinka ahayn ma ku xaqsanayna qofka maartay shabaab iyo balaayo waxa soo dhax socon kara wadanka wad ogtay hareerayna waxa naga xiga xamar waxa ka jira macnaha security-ga noo sugan lafteeda wuxuu ka qaadanayaa door culus oo adag ka qaadanaya marka dadweynaha degan magaalada Boorama waxa saay mas'uuliyiinta iyo salaadiinta gobolka sheegeen aan ku boorinayaa inay soo baxaan tagaan goobaha diiwaangelinta qaataan kaarkooda muwaadinka salaam estimation-ka aan qaadanay waxa weeye dadka magaalada degan intiiba 17 jir ka sareeyo oo eligible ama laaciq ama gaaray daadii lagu diiwaangelinayo kaarka qaadanaysa marka waxaan qaadanay wadanka dhan intee ku nool hadana waxaan qaadanay gobolka inteeba ku nool marka estimation-ka dhammaan qaadanay Soomaaliland oo dhan inteeba ku diiwaangelin kartaan gobolka intee laga bixi karaa ama xoro ku tijaabin laakiin fadlan alxamdu hadana waxaan waa kii madaniga ahaa ma istaagay wariga macnaha ku bilowna maanta magaalada Boorama laakiin Boorama kabari kama istaagay system kuwa system loo jiray dawladda oo soo wareegaya laakiin hadda uu tolma noqonayo sidan dawladda dhaxo wato horwareennada iyo caaqilka iyo askarta iyo qalabka iyo kadka iyo internetka wala keenay ma hadda uu dawladda oo sabab loo dhigo waxa laga rabo caaqilka laga rabo kharashka laga rabo kaarka uu lacag ku noqonaya marka inta bilaash yahay oo facility-ga aan fududna bulshada marka inta aanu lacag nagu noqon inta aanu yaraan way horwareennada halka jooga dhamaantood wada joogayaan degmooyinka kale inala la waxa kasta muwaadin wuxuu leeyahay inuu kaarkiisa ku joogo helo muddaciiban ma leh inta aad ku mikahan imiga halka waxaan muddada kaga dhargeeyna magaalada waanu joogaynaa laakiin waanu yareyn doonaa bilka bacdi bisha koowaad oo xooga saarayna haddii ay bisha koowaad aad loogu socoto hore walaad waliba diiwaangelin bisha labaad ku darsan karnaa laakiin dadweynaha kale oo degmooyinka gobolka tirsan xaq weyn ugu leeyahay inaan markii teknoolojiyada xaq weyn ugu leeyahay marka priority-ga siinna halkan laakiin ma aha macnaheedu waa wada joogayna waligiiba macnaha xooga halka saarayna laakiin waxaan geeynaa systemka maanta suuragalkeedu ay noo suura gashay waxay noo leedahay qiimo gaar ah ayay inoogu fadhidaa waayo waxa weeyaan waa muwaadinkii aad ahayd ee aad Somalilandarka ku ahayd ee aad adigu dhalashadaadii iyo aqoonsigaagii aad kaga duwanayd bulshada inteeda kale ee lagugu garanayo cid waliba sumad bay leedahay marka reermiyigu xoolaha sumad bay ku kala dhigtaan oo sumadaasay ku gartaan oo lagu gartaa dunidana bani aadmiga waxa lagu gartaa
dhalashadiisa iyo aqoonsigiisa uu sito ayaa u sumada qof waliba aqoonsiga uu sito ayaa sumadu ah waayo ummad badan baynu soo egnahay markaad meel ka degtid madaar ka degtid haddaad dhalashadaadii sidatid dhalashada aad sidatid baad caddaynaysaa cidda aad tahay qofka aad tahay halkaad ku dhalatay halkaad u dhalatay maanta waxay ka bilaabantay magaaladii Boorama waxa ka furmay xarumo badan oo ay ka mid tahay haruunintii oo haddana aanu maanta ka hadlayna ay tahay oo aanu anagu iska diiwaan gelinay oo ka qaadanay kaarkii إن شاء الله تعالى وحنا بنشده وباقينا إلى قاطع قف ولما إسقى إسكره برشدي سئنوا سوق قف كسوق وياه إسقى لجبته إسقى وحكو سيء دوران إسقى وحبة كواي دوران لكن قف كي قاطع وعن ربا وحب بدن أي وقف ضلال دونتو وقضيت بدن أو لبدن وعرما بنشده كسابسن أي وقف رجال دوران لأن الشعب وربوي هاي سنة هذيك يقف كاره وعكو كره توانتي دوار دلشده dad waliba cid waliba waa caynka marka waxaan ugu baaqayaa bulshada inay qaataan kaarka inay diiwaan geliyaan ma aha midba istaagaysa waa mid ilaa yawmadiin soconaysa oo ay dawladdu hoose hayn doonto waayo kii dhashabaa la doonayaa in la register gareeyo ka dhintabaa la doonayaa in la diiwaan geliyo laga saaro qof waliba inuu fayl yeesho dad la yaqaan oo sugan inaynu noqonno dadka tiradiisu saasay ku soo baxaysaa qof waliba saasuu ku sugnayaa wax khaldamaya inayna noqon qof la waayo inayna yeelan saasaynu markaa bulsho jirta oo caalamka ka mid ah oo aqoonsigeedii iyadu isaaqoonsatay ayaynu noqonayna run ahaantii waxa weeyaan waa arrin qiimo weyn aad iyo aad ugu fadhida muhiimiyad bulshada Soomaaliland iyo dalkeena iyo qarannimadeena iyo dawladnimadeena muujinayso oo inoogu fadhiyo wax weyn marka waxaan ka codsanayaa in ay isdiiwaan geliyaan xarumo ilaa 28 xarumood baan ka furnay kuwa furmay ee ugu horeeya waxa kamid ah hanuunintii oo magaalada bartamaheeda oo qof waliba soo gaari karo ayaa kamid ah waxaan leeyahay isdiiwaan geliya ay tahay tijaabadii iyo hawlgalkii dhaqaaqii ugu horeeyay iyo actionkii ugu horeeyay waa goobtii koowaad ee ay ka bilaabantay diiwaangelinta waa diiwaangelintii madaniga ahayd diiwaangelintu way badan tahay diiwaangelintani waa diiwaangelintii madaniga ahayd ee qofka muwaadinka ah inuu qofkaasi reer Boorama yahay inuu qofkaasi reer Dila yahay inuu qofkaasi yani Somaliland dhab ah yahay muujinaysa qofka maanta Itoobiya ka yimaada iyo ka Boorama ayna ku dhashay wixii lagu kala garanayay ama Djibouti ka yimi way kii isla markaan haddana lagu sii kala garanay dadka Somaliland-ka ah inuu reer Hargeysa yahay iyo inuu reer Boorama yahay iyo inuu reer Burco yahay lagu kala garanayo way qofka Somaliland-ka laftigiisa si kala saaraysa waa degmooyinku maanta ay ku tartamayaan waa hawshan مسؤولية واحد لو ريق دونا إمك وزارة الداخلية أيها قاعد كويسة واحد لو ريق الدولة ده هوسه وهالكي لوجو طلع عليه أركيف يدا تاي سردا عينو رادين إنه أما نقف الدنيا أركيف يدي سين لهلا حفيز كي لقى هالجريء الدولة ده هوسه أيها لو ريقيا وأنا الشقة كمية شقوي كي الدولة ده هوسه لوكال جوفرمنت لوجو طلع عليه أرنتنا وأرن موجنا إنسا إننا وحقب سكرنا وأرن موجنا إنسا إننا عد معاونا بحساب يعد يونا أما عد هي إننا نقالوا قبلها كرين أو إنه وأنو سود كرنا أرنتن هل كان قوب تيجو رئيسي برساب كقول كقاطي أنا أيمن كقاطي أجاسميه برساب كبجينكي ويبرامن تهاوش وحدونا الشانس هنا توقف فايدين عدان هيسن دلشدا موادنك لما سينيو فايل لو ما شرعينيو تاليس سلك دعوة لقما قبانيو لأنه قف كان سلك دعوانيا ما موادن با موقف ميرك لك يمدي با وين لك الأوجادو واحد لا حق بان ولا هاي أريد أن كدعوانيو إلا يجا أقبله موادن بان هذا دلشدا يدينا وطها وكو والجويدين هذا دلشدا والجويدين يا كار دلشدا والجويدين يا
faylka sharciyeyntiisa waa shuruud bay ku tahay hoteelka laftigiisa shuruud bay ku tahay hoteelka laftigiisa seexanayso laana waa xaqi nabadgelyada inaga caawinaysa hoteelada ay caawinaysa taas oo xaqi nabadgelyada ay naga caawinaysa oo ay doonayna inay ogaano qofkani ma muwaadin ba mise muwaadin ma xaqi wada shaqaynta haddaad maanta halka ka doonayso shaqo وين كان حاجة موادين ما وين سلتوي حقنا واضح ولا رمى كان حاوضته وتحيك تهدتك إن حالها عاف ما نختار كمان تجيز كان حاجة دقمة أمر على شلا وين الوطوي هذا التيم موادين ما ودن واحد وين نك إثيوبيا كيمي كم حكتين هنا نختار هذا يجي له بحنا هنا كار كانوا حقاقة فضينا يا ككرين بريورتك لقى سيادي قول أدوك بريورتك لها وأدوك تيم ضمن العالم كا قفك موادك هي قفك كلا أجانب كي مرهم بقريش كجوجان مال كم والله قران حويان جنك وهلكو كل شيء هلكو كل شيء يوحي هي إلا شيء وواجب عالم كي تجرته وحوي dad baad wax kale moodiyo yani tani inay wax qalad leedahay waxaan kuma saabsana waxa adoonaysa in dhalashadaada la ogaado oo meeshaad u dhalatay iyo halkaad ku dhalatay iyo waxa tahay la ogaada annagu wanaag baan noo aragnaa hal is diiwaan geliyo dadku ha is diiwaan geliyo